السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا ولاليال جنرال سمق أب aad ugu barteen fiidiyoyaal aad iyo aad u xiiso badan. maanta muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay ab inaba caadi aan ahayn, magaciisa la dhahayo Melon. saa hadda halkan aad ugu jeedaan applicationkan waxaad galaysaa live, wadan walbaad u baahan tahay waad kala hadli kartaa. haddaba applicationkan Play Store-ka hadda ku qorto Melon waad ka helaysaa, sidoo kale linkiga hoose ee description-ka waan kugu siin doonaa. haddaba barnaamijkan waa ku dhufanaynaa, kadib halkan ay ku keenayaa waxaad gelinaysaa gmail-kaaga iyo password-kaaga. hadda waxaan gelinaynaa gmail-keena iyo password-keena. kadib markaad geliso halkan ayuu ku keenayaa, kadib waxaad dhehaysaa allow. halkan waxaad gashanaysaa okay iska dheh, halkan waxaad gashanaysaa magacaaga. haddaan ku tusug halkaas waxaad gashanaysaa magacaaga. tusaale haddii aan geliyo Nuurdiin, halkan waxaad ka dhiganaysaa male ama female, nin iyo naag waxaa tahayba male ayaan leenahay. kadib halkan sawiraa saaran kartaa, haddaa idin tuso halkaas sawiraa saaran kartaa, ku dhufo. kadib gallery dheh, gallery markaad dhahdo allow. kadib saa u jeedaan waxaan gashanaynaa loogada Somag App ayaan gashanaynaa, waan ku dhufanaynaa. wuu inoo saaray, saa u jeedaan waxaad taabanaysaa calaamadda kore ee saxda. waa idin tusaa sug calaamadan. kadib halkan ayuu ku keenayaa, waxaan leenahay continue. kadib sidan ayuu kuu soo qabanayaa, allow ayaa leedahay. saa u jeedaan barnaamijka uu inoo soo qabtay. hadda qof ayuu inoo raadinayaa, haddaa idin tuso qof ayuu inoo raadinayaa. saaxib saata saaxib waa lu waay, maxaa kugu dhacay saaxib? saa u jeedaan ninkan gaalka ayuu inoo soo qabtay. haddaa rabto sidaas ayaa laaf u gali kartaa. mar labaad haddaa idin tuso, saa u jeedaan hadda qofaa soo galaayo. hadda saa u jeedaan qofkaana inoo soo galay. haddaba sidaas ayaa ku samaysan kartaa. barnaamijkan waxaan isdhahay asxaabtaada la wadaag, waa barnaamij aad iyo aad u fiican. marka waad mahadsantihiin dhammaantiin, meel walba dunida ka joogtaan. waa walaalkii Nuurdiin oo idin leh bye bye.